بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكن يا حي يوسف عمر walaalayaal tawfiiqda Allah na waafajiyo dambigeena dambiga waalidiinteena la dhaafo walaalayaal waxaan u soo galay inaan maanta ogeysiis yar ogeysiiyo alxamdulillah ilaa ba fadliga iskale saad ogtiin walaalayaal tawfiiqda Allah na waafajiyo maanta zamankan aan ku jiro waxa batay walaalayaal ilaahay nagu og yahay furidii guurkiina alxamdulillah waa ku dhow yahay guurkii waa yaraaday laakiin waxa badatay furiduna haddii sii badatona waxaa dhacaya mashaakilkii usrada iyo waxa mashaakilkii mujtamaca ayaa dhacaya falidalik walaalayaal alxamdulillah ilaahay jalla wacala fadliga iskale waxaan go-aansaday in insha allahu tacaala muddo yaro iyo gaaban baan joogaa east africa haddii ilaahay dhaa way ka mid tahay ugu horeynaysa ethiopia jabuuti kolleyba haddana ethiopia kusoo noqonaya calaa kulli xaal marka fursadaas aan haysto ayaa maanta waxaan go-aansaday allahuma laka alxamd in haddii ilaahay yidhaahdo masaajid ku yaala halkan dirdhabe oo la yidhahdo masjid khulafaa arraashidiin oo aada iyo aada u weyn oo shalay toole aan khudbada jimcaha alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay waafajiyay inaan ka khudbeeyo ayaan maanta ugu ballan qaaday inaan maxaan ku idhahdaye aan u bandhigo guurku wuxuu yahay asalkiisu guurku wuxuu ku fiican yahay ilan gebigeedaba shareecadeena noo dhigtay xaqii iyo xuquuqdii la isku lahaa markii ay sheekadu laysa siin waaye ninka raggaana xaqa gabadha siin waaye gabadhuna xaqa ninka siin waayday halkaas ayay markaas ay ka jabtay lidaalik arrinta meesha ay ka fakatay oo ay maxaan ku idhahday ay gashay maanta inay farahaba ka baxdo oo halkaa iyo social media laysla aado oo kadibna la yidhahdo faarax ilfaha loo qaado maxaan ku idhahda xaliimana ilfaha loo qaado falidalik tawfiiqda allah hana waashiye maxaa asal u ah walaalayaal arrinta waan maalin walba waan dhegaysanaa dhegtaan u dhignaa haddana wax ka hadlayo odhanaya warniyaho meesha ka xumaatay meesha maxaan ku idhahday ay ka noqotay ay ka xumaatay arrintu ma dhegaysi baa lagu jiri walaalayaal iyaa qalad kale ma ninkaa leh ma qofka dumarkaa leh ayaan rabnaa inaan ku beesgarayno shareecada islaamku waxay ka dhigtay iyo halkay dhigtay ayaan insha allahu tacaala aan rabnaa in aan insha allahu tacaala meel ka dhigo inta aan joogo waxaan rabaa walaalayaalow reero badan oo kala tegaa jiray ilahay jalla wacala waxaan ilahay ka baryay inu ilahay subxana wa tacala isku celiyo oo ay dhibtaba ugu weyna ay tahay cilmigii ay laisku guursanayay waan aqaanaa waan ogahay imikadan xataa marka aan leeyahay hadalkaa marka aan leeyahay dad badan oo waxaa jirta mister I know everything ah wax walbaan aqaanaa ninka ha noqoto ama qofta dumarka maya waa guurka waan aqaanaa ma walaalayaal meeshay ka fakatay meeshay ay ka jabtay waxa weeye ilaahay jalla wacala shareeca uu noo dhigay oo lagu kala dambeeyo oo la isku ixtiraamo oo xaq iyo xuquuq la isku leeyahay ninka raggana qofta dumarka ay ku leedahay labada xaq ayaan si fiican u sharaxaya laa qofta dumarkaana ninka ragga uu ku leeyahay maxaan ku leeyahay labada xaq haddii lagu ilaaliyo siday ugu beesgaraysanta ilaahay jalla wacala uu sharciga ugu soo dhegiyay maanta may noqon lahayn in fagaaraha la isla aado oo maxaan ku idhahday ay dadkuna maxaan ku idhahda dhegta unu dhigaan maasha allah labadaas ayaan walaalayaal waa inaan la nimaadna xalkii waa markaas insha allahu tacala aan damcay ilaahay idankii horta halkaas waan usoo noqonaya haddii ilahay yidhahdo meesha ay ka bilaabmatay ee lagu kala tegay ee maxaan ku idhahda buuq uu ku kala tegay maanta imaam walba oo masaajid ku haya westernka wuxuu hayaa tiraba ka ugu yar wuxuu hayaa ilaa 10 qoys oo qarkar taagan waana ogyahay waxa weye intaasoo maxaan ku idhahday maxaakimtiiba ayaa buuxsantay ma haynagoo keliya rag iyo dumar oo halkaas la aaday oo dhanba oo xaq iyo xuquuqdii laysa siin waayey oo lagu kala tegay maanta waxay gaadhay in maxkamada laysla aado dhibta ugu weyna ay soo gaadhay ilmaha in la jeclaado oo loo naxariisto ayay dhibtaasi ay gaadhay maanta cunug walba oo meelaha ku nool oo reerkii aabbiyo hooyi ay kala tegeen ilaahay baa og xanuunka soo gaadhay psychologically mentally emotionally intii soo gaadhay caqliyan maxaan ku idhahda jasadiyan kulleba meelaha ma jirtee caqliyan iyo maxaan ku idhahdaa iyo nafsiyan xanuunka ilmaha soo gaadhay
walaalayaal bal sidaan u badbaadin lahayn labadaas reer oon u badbaadinayn ilmaha. allahuma laka alxamd uma laka alxamd. ilaah baa mahadda iskale. 10 sanaan kusoo jiray, waanaad la socotaa intii ardayday dhegaysan jirtay darsigayga iyo maxaan ku idhahdaa la socotayba si fiican. wallahi waxaan garanaya malaan 2 sano in markaa waday kadib wiil baa iga soo wacay maxaan ku idhahda meesha la yidhahda Holland oo igu yidhi wallaahi buu yidhi Sheekh Yaxyo haddaan 2 sano ka hor qaadan lahaa darsiga aad bixinaysid ee ku saabsan reerka sidii loo dhaqi lahaa, wallaahi waxay noqon maanta single father ma noqdeen buu yidhi. single father malaalayaal maxaa xala in la helo wey. marka xalkii baa ilaahay jalla wacala ilaahay subxaana watacaala ilaahay baa waafajiyey. waxaan ilaahay ka baryay inaan insha allahu tacaala bal ka bilaabo maanta darsi baan ku leeyahay oo ku saabsan sidii maxaan ku idhahdaa cilaaqada zawja loo toosin lahaa, loo wanaajin lahaa ayaan ku leeyahay magaalada Dardhabe. masjid weyn oo la yaqaano oo caan ah oo loo yaqaano masjid khulafaa oo ku yaala halkan ayaan maanta waa bayaanku waxa weeye aan ku sharxayaa, aan darsiga ku dhigayaa afka Soomaaliga. berri toolana haddii ilaahay fadligiisana oo axada waxaan ku dhigayaa afka Oromada. bilaahi allahuma laka alxamd uma laka alxamd. English, carabi, urdu, meeshaad igu timaadaanba ilaahay idinkii darsigaasi waad iga heli doontaan ilaahay idinkii biidni lmawla jalla wacala. waxaan iminka soo maraya waxa laga yaaba asbuucan soo socda meelahaas maxaan ku idhahdaa talaado ama Jabuuti baan u socda. ilaahay idinkii Jabuutina waxaan ku dadaalaya inaan masaajid weyn oon ugu dhigo biidni illaahi tacaala. arrinkaas maanta shareecada islaamka waan u jeednaa ummaddii inay kala tegtay. ummaddan maanta hadda kharaabkaas ama dhabtaas ku dhacday ee reerihii ku kala tegeen ay sababta u tahay sharcigii ilaahay oo laga tegay oo la garan waayey xaq iyo xuquuqda laisku leeyahay. markii laga tegay ayaa waxaa weye dhibaatooyin badan reerkiina soo gaadhay, ninkiina waa soo gaadhay, qoftii dumarkana waa soo gaadhay. dhibta ugu weyna waxaa soo gaadhay ilmahaas. falidaalika walaalayaal saan u badbaadin lahayn zawjka, saan u badbaadin lahayn zawjada, saan ilmaha u badbaadin lahayn ayaa darsigaasaan rabaa haddii ilaahay nafta noo dahay. waxaan u socdaa asbuucaan joogaya insha allahu tacaala. aan jecelahay in aan insha allahu tacaala halkaas aan Jabuutina insha allahu tacaala biidni lmawla jalla wacala aan darsigaas bal insha allah taala u bandhigo. kadibna waxaan usoo noqonayaa haddii ilaahay nafta ii daayo Jabuuti. markaan usoo noqda waxaan usoo noqonayaa magaalada la yidhaahdo Jigjiga iyo hareeraheeda si aanu insha allahu tacaala bal u badbaadino. xataa bidaat dhibta soo gaadhay meelahaas Faarax iyo maxaan ku idhahdaa iyo Xaliimo ee maalin walba TikTok iyo lagu jiro waxay hoos timi dad iska fadhiyo oo aan waxba ogeyn bay ay soo gaadhay sharaaradeedu, ay soo gaadhay dabkeedu soo gaadhay. dad Afrika joogo oo dhaqan ku dhisan oo reera maxaan ku idhahdaa gabdho yar oo ninkan ha maqlin hadalkiisa. ninkan uu leeyahay maxaan ku idhahdaa qof dumar carman lama guursado. ilmahaasi horta meel laga dhig. waxaan u baahannahay walaalayaalo xalkiina ilaahay idinkii biidni lmawla jalla wacala. anigii culamo badan ayaa haya. waxaana jeclaan lahaa culamaduna inay soo noqoto bal dadkii kala tegay ay u sharaxdo xaq iyo xuquuq waxaa la isku leeyahay. arrintaas ana alxamdulilah ilaah baa fadliga iskale, ilaahay jalla wacala ay waafajiyey. waxaana rajeynaya insha allahu tacaala bal hadba ilaahay idhaahdo intaan gaarsiin karno reeraha kala tegaya ama qarka saaran in ilaahay idinkii biidni illah sabab aan u noqono ay kusoo noqdaan. ciddii kala tegtayna ilaahay jalla wacala u noqonaba xal ay kusoo noqdaan, ay ku ogaadaan qaladkooda iyo qaladadooda. waxaan aada iyo aada uga hadli doonaana qaladkama ninkaale qofta dumarkaale sidey ayaan xalkii aan u keeni lahayn. arrimahaasaan ka hadli doonaa walaalayaalow. waa ogeysiis biidni illahi tacaala. waan jeclaan lahaa dadkan maxaan ku idhahdaa wax duuba inay duubaan oo gaarsiiyaanna way ficnaan lahayd. maanta meeshii laga faafin lahaa Faarax iyo maxaan ku idhahda lasaas war Faarax iyo sababta u keentay dhibtaasi iyo xalkeedii ayaan rabnaa insha allah inaan ka hadalno. bal soo dhawaada maanta masaajid khulafaa ayaan ku lehay. berina waxaan ku lehay maxaan ku idhahdaa luqada Oromada isla nafsi masaajidka Jabuuti waan u socdaa, waan ku diyaarinayaa. Jigjigana waan usoo noqonaya biidni illahi tacaala. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.